$10 meelahaas ilaa iyo 12 ayaan u jeednaa inay tahay. marka coinka maali uu sareeyo tagay waxay ahayd 261 maali kala ku sii xigay 158 oo soo daatay mar kale oo ilaa iyo 160 buu yimid kala ayuu sameeyay oo ku gaaray ilaa iyo 1976 oo kale marka la xogaa uu nasiino ama correction buu sameeyay wuxuu gaaray ilaa iyo 4724 buu gaaray marka waa la soo daadiyay waxa waaye 1114 yimid runtii fursad fiican buu bixinayo coinkan markale iyo barnaamijkeeni fursadaha coinska maanta waxa miiska noo saaran coinka Ethereum waa coinka labaad ee suuqa u weyn marka laga soo tago Bitcoin waxaan isla fiiri doonaa fursadaha ka furan caqabadaha coinka haysta iyo si guud qaabka maaragtay u muuqdaan fursadaha soo socda barnaamijkeena fursadaha coinska aalaba waxaan hadalnaa fursadaha ay bixiyaan coinska kala duwan ee suuqa hore waxaan soo hadalnay coinka Bitcoin oo runtii aad iyo aad dhalinyaro badan iyo arday fara badan bay uga faa'iideysteen haddaba waxaan rajay doonaa in aad kan wax badan ka faa'iidi doonto fadlan muuqaalka like saar YouTube-ka subscribe saar asxaabtaada la wadaag asla tagno screenka haddii aan screenka isla tagno coinka maanta miiska noo saaran waa Ethereum haddaan fiirno marka Ethereum oo kale market cap-keeda haddaan fiirno iyo rankingka wareen horta coinka wuxuu noqdaa 3 inuu noqdo large cap inuu noqdo middle cap inuu noqdo low cap Ethereum marka waxaa leenahay waa large cap ayaa leenahay marka sidoo kale rankingkeeda waxaa waaye waa number 2 marka loo fiiriyo market rankingka marka loo fiiriyo okay waxaynu wixiga utility use case wax leeyahay utility-ga ama use case-ka caadiyan utility waa shaqada coinka use case-ka waxa loo isticmaalo marka coinka marka su'aashtan waxa waaye hype miya coinkan hype miya soo waxa waaye hal waynaata labaad kala saarnaa coinka marka waxa waaye caadiyan waa hal utility-ga marka Ethereum haddaan fiirino shaqada uu qabto kow waa smart contract labo waa gas fee saddex scalability afar token creation intaasba uu qabtaa haddaan fiirino use case-ka waxyaabaha loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa DeFi oo fast and cheap ku yahay waxaa loo isticmaalaa payments oo sida yacni microtransactions oo kale lacag bixinta loo isticmaalaa web3 apps-ka loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa meme coin ecosystem-ka oo loo isticmaalaa haddaan fiirno tokenomics-ka maximum supply oo coinka oo kale aan galno Chrome aan tagno coin market cap aan tagno aan gudaha u fiirino haddaan fiirno market cap-kiisa oo kale waxaan u jeednaa 255 bilyan inay ku jirto sidoo kale ranking inuu yahay number 2 haddaan gudaha usii galno supply-giisa waxaan u jeednaa circulating-kiisa oo kale hadda inuu yahay 120 total-ki inuu yahay 120 maximum supply infinity inuu yahay aan u jeednaa marka coinkan mirihiisa ma badno laakiin waxa waaye sababta loo yani maaragtay ishaga loo xiray oo maaragtay maximum supply-ga maaragtay ishaga loo sameynayo waxa waaye coinkan wuxuu leeyahay combination waxa ku dhaca miro ayaa ka gubta marka waxa loo baahan yahay mirihii gubtay lagu bedelo miro kale that's why infinity uu yahay okay sidoo kale waxaan u jeednaa in volume-kiisu uu yahay 14 bilyan 24 saac u dambeysay haddaan fiirno waxyaabaha cajaa'ibka leh oo maaragtay coinkan maaragtay aan ku arko wax ka mid ah dhinaca price-ka technicalka aan u tagi doonaa okay qodobka lixaad aan ka fiirinayno waxa waaye coin history waaye taariikhda coinkan aan tagno waxaan u jeednaa coinkan markii suuqa la soo galayay inay ahayd markii la soo geliyay 2015 meelahaas marka waxyaabaha qiimaha ku soo galay waxay ahayd $10 meelahaas ilaa iyo 12 ayaan u jeednaa inay tahay marka coinka maali uu sareeyo tagay waxay ahayd 261 maali kala ku sii xigay 158 oo soo daatay mar kale oo ilaa iyo 160 buu yimid kala ayuu sameeyay oo ku gaaray ilaa iyo 1976 oo kale marka la xogaa uu nasiino ama correction buu sameeyay wuxuu gaaray ilaa iyo 4724 buu gaaray marka waa la soo daadiyay
waxa waaye 1114 yimid runtii fursad fiican buu bixinayo coinkan waxyaabaha xasuusta ka mid ah 2022 inuu yimid 800 meelahaas inuu yimid oo aan maaragtay entry ka sameeyay ayaa xasuustaa oo aan 3000 xoogaa baxay marka technicalkaas si fiican u fiiri doonaa laakiin si guud coinkan waa coinanka maaragtay ugu projectiga fiican Lucas Sunida badan yahay suuqa marka la joogo okay coin news ka daan fiirino coin coin ka fiirsan inuu leeyahay partnerships listing of Binance and Coinbase oo kale coin kan doono baahna update soo baxa waa la socotaa qodobka sideed daan fiirino community iyo hype ka daan fiirino bulshada coin ka sida furcaan tahay in ka fiiriso X Telegram Discord activity wana fiirsaa qodobka sagaalaad haddaan fiirino technicalka qaybta falaqaynta waxaan ka fiiri doonaa support and resistance levelska uptrend downtrend indicators iyo RSI gaan fiiri doonaa aan tagno trading view trading view gudaha ayaan usoo galnay okay chartiga aan tagno Ethereum noo soo door Ethereum waxaan u jeednaa in ay marayso 2118 inay marayso ayaan u jeednaa soo kale haddii aan fiirino waxyaabahan ku sawiran daily noo geey okay faraqeyna hore aan sameynay waaye marka waxaan jeednaa dhaqaaqa u dambeeyay in laga soo celiyay coinka aga 2462 oo hadda soo daatay oo la keenay ilaa iyo $2011 okay sababta hadda ugu xoogan coinkan u yaala waa agan 1746 ayuu u yaalaa sidoo kale sababta kale ayaa ku jira agan oo 1800 ah haddii aan fiirno marka coinka markii u dambeysay 4944 ayaa laga soo daadiyay haddaan ku calaamadeeyo waa agan waxaan ka hadlayo agaas marka runtii haddaan fiirno dhaqaaqyada uu sameynayay markii uu u dhaqaaqa badnaa coinku wuxuu ka kacay agan 113 buu ka kacay waxaan u jeednaa marka inuu sameeyay dhaqaaq dhan 4178% admins waxa waaye qofkii maartay $100 ka raaci lahaa lacagtiisu 4000 iyo xogaa isku bedel lahayd waa okay kadib waxaan u jeednaa in coinku mar kale uu sameeyay daadasho ama nasiino inuu sameeyay oo la keenay agan maartay 1700 meelaas in la keenay oo boqolkiiba maartay 59 soo daatay runtii jaanis bay ahayd dad baa ka raacay oo dhaqaaq kale oo maartay macquul laga faa'iideysan karo marka la baxshay oo ilaa iyo 172% ay bixiyay marka meeshan waa la jabiyay markii dambe meelaha marka 2020 arkayo akuwana agan 900 ilaa 800 ah ayuu ahaa marka runtii maartay waa raacay jaanis fiican inkastoo xogaa nala yara meereystay oo maartay agan la dhaaf waayay laakiin ugu dambeyn maartay 3000 xoogaa meelahaas aan u har aniga oo runtii profit fiican ayaan ka qaatay haddaan fiirno marka xilliga marka coinka maxaa laga filan karaa marka coinkan horta caadiyan sida hadda muuqata wuxuu noo sameyn karaa taabasho kale inuu noo sameeyo oo ultimate-giisu ku laabto ayuu noo sameyn karaa sidoo kale waxaan arki karnaa in coinkan uu yahay coin runtii aad loo aaminsan yahay mustaqbal leh marka qofkii maanta xagan ka gala oo dhaqaaq fiican maarta u sameeyo lacag fiican buu haystaa marka adigana baaritaanka gaarka sameey haddaan ku soo laabano PDF-ka sidoo kale dhinaca trendska daan fiirno suuqa hadda jahaysi guud waa down trend haddii marka taabashada loo sameeyo dhaqaaq weyn baa ka filan karnaa okay RSI haddaan ku fiirino dhinaca RSI kale haddaan fiirino RSI haddaan fiirino RSI waxaan u jeednaa hadda inuu yahay runtii strong sell inuu yahay oo waliba ku sii jiro okay marka hadda waxaan u jeednaa hadda inuu ku jiro oversold inuu ku jiro ayaan u jeednaa
marka runtii waa profit kale ama maaragtay faa'iido kale oo muujinaysa in maaragtay suuqu chance fiican ka furan yahay aan laga faa'iideysto haddaan kusoo laabano pdf keena qaybtan waxaa waaye risk analysiska waa inaad iska fiirisaa whale manipulation waa iska fiirisaa risk regulations waa iska fiirisaa psychological riskiga waa in ayadana ka taxdirtaa iyo security riskiga qodobka 10aad talooyin muhiim ah maxaa waaye haraacin boomboonta haddii uu yiraahdo ethereum baa 100 tagaysa ha yeelin adiga baaritaan ku gaara samey mar walba cilmi baaris ku gaara waa inaad sameysaa do your own research taas ka taxadir sidoo kale waa inaad kala duwdaa portfoliyadaada tusaale ahaan coinanka aqaayinaysid inay noqdaan kuwa kala duwan kala project kala category ah aad ma san tahay muuqaalka like saar youtube subscribe saar saaxiibka la wadaag